halkan aan ku dhagax dhigayno wadadan runtii waa wado aan rabno in wadooyinka ciriiriga ahaa ee degmada Waaberi ay ka baxaan ay helaan wado baabuurta mari karto wadadan oo aan rajaynayno isku xirayso waxay badan oo muhiim ah horeyna u nimido halkan dadkii jidadka qaar ka dhistayna aan guriyihii ka duduminay ujeedadana ahayd in jidad nafis ah oo ay helaan degmada Waaberi waxay ka mid tahay degmooyinka qadiimka ah ee caasimadda si caasimadda loo horumariyo bilicdeeda loo soo celiyana waxaan garanay in aan ahmiyad gaar ah siino degmada Waaberi waxaan kaloo rabnaa bulshadeena u sheegno in arrimaha danta guud wadooyin ka mid yihiin iyo goobihii lagu adeegayo bulshadaba inay muhiim tahay annagana u soo jeesanay dibadhiskooda iyo horumarkooda tan oo qayb ka ah caasimadan si ula tartanta caasimadaha adduunka waa in la helo caasimad la jaan qaadi karta caasimadaha adduunka arrintan waxay ku timid dadaal degmada Waaberi iyo shacabkeeda runtii ay u garteen ahmiyadna siiyeen markii lala tashtay wadadan inay ahmiyad gaar ah u leedahay una baahan yihiin wadooyinkan in loo furfuro waxaan kaloo codsanaynaa dadka wadooyinka dhistay ayagana inaan digniin adag u dirno tii u dambeysay oo ah cid wado soo geli karta male gurigaaga hadduu dabaq yahay 1 mitir haddaad soo gasho waxa waa wixii ka yimaada adaa mas-uulka marka hore goob wada ah oo dan guuda ha hawaysanin ha dhisanin hana maaragtay ka qayb qaadanin in falalka noocaas oo kale ah marka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo gudoomiyaha iyo maamulka degmada Waaberi iyo shacabkaba oo maantana sida aragteen noo soo dhaweeyay siday ugu faraxsan yihiin aad u jeedaan marka waxaan rajaynaynaa wadadan oo hagaagsan baabuurta maraysana inaan mar kale isugu soo noqon doono aad iyo aad u mahadsantihiin